السلام عليكم أصحابته ولكن مصطفى العدالة قلبت waxaan idin wadaa qiso cajiib ah oo dhaxmartay wiil iyo gabar isla dhashay oo xumaan ama faaxisho sameeyay subxaan Allah qisadan waa cajiib ah intaan u guda gelin karo fadlan subscribe sar YouTube channelkayga haddii aad ku cusub tahay qisadan oo aad la yaabi doontaan ayaa ka dhacday magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxayna dhaxmartay wiil iyo gabar Soomaaliyeed oo isla dhashay balse aan wax aqoon ah isku lahayn gabadha oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa u dhooftay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya goob shopping lagu iibiyo ayay kula kulantay wiilkan waxaana dhaxmaray kaftan dheer kadib waxay kala qorteen lambaradooda iyagoo ku heshiiyay inay xiriir yeeshaan xiriir dheer kadib waxay wada kulmeen dhowr iyo 10 maalmood iyo in ka badan waxayna ku heshiiyeen inay xiriirkooda u bedelaan xiriir jacayl waxay wada socdaanba muddo kadib waxaa go'aan gaaray wiilkii oo go'aan ku gaaray inuu u dhoofo cariga iyo dalka Mareykanka gabadhii isagoon la tashan ayuu go'aankaas qaatay waxaana aad uga xumaaday gabadhii wuxuu ku qanciyay inuu u soo dacwood doono oo mar uun Mareykanka geey doono gabadha oo hami fog ka lahayd arrintaas ayaa iska aqbashay waxaana xiriirkoodii halkoodii ka sii watay labadii lamaanayaashan oo aan wax aqoon ah isku lahayn balse dib iska ogaan doona ayaa waxaa qiyaano la imaaday wiilka oo damacsanaa inuu god ku rido gabadhan maadaama aysan wax hami asara ah uusan ka lahayn gabadha oo daacad u ahayd ayaa wax walba ka aqbashay wiilkii waxaana intaas kadib ay ku heshiiyeen inay wax walba oo xumaan ah sameeyaan maadaama uu xiriir fiican ka dhaxeeyo wiilkana oo aad iyo aad ugu qanciyay inuu mar uun Mareykanka geey doono gabadha oo rajafo ka lahayd wiilka jaceylkiisa iyo inuu mar uun Mareykanka geey doono ayaa wax kasta ka aqbashay waxayna ku kulmeen goob hotel ah iyagoo wax kasta sameeyay wuxuu ka qaaday sawirro qaqaawan iyo waxyaabo anshax xumo ah in muddo kadib waxaa khilaaf dhaxmaray labadii qofood ee xiriirku ka dhaxeeyay ee aan wax aqoon ah isku lahayn wiilkii ayaa muujiyay xanaaq iyo dabeecado aan looga baran markii hore isagoo ku fikiraya inuu si awood ah ama xun u adeegsan karo sawirrada uu markaas hayo oo is dhahayay xoogaa ku adkay ama ku xumay gabadha oo iyaduna aad iyo aad uga feejigneed wiilka balse ka baqaysay inuu mar uun sawirradaas faafin doono ayaa u jiljilcanaatay wiilkii waxayna ku qasbanaatay inay ajiibto wax walba oo asaga xaqiisa ka yimaada wiilka oo mar uun xanaaq iyo dabeecad xumo darteed u sameeyay wax walba ayaa sawirradeeda faafiyay gabadhii wuxuuna Facebook ama baraha bulshada ku faafiyay sawirradii isagoo ku soo dul qoray erayo aan afka u roonayn oo anshax xumo ah asagoo si qaldan u adeegsaday sawirradii iyo erayadii uu ku soo dul qoray waxa arkay dad labada qofood isku yaqaan oo og inay isla dhasheen inkastoo ayagu aysan wax aqoon ah isku lahayn wiilka ayaa loo sheegay ama aragti ahaan loogu falceliyay inay tahay gabadhan gabar la dhalatay waxaa su'aal ahaan loo weydiiyay maxaa sidan u sameynaysaa miyadan wax aqoon ah u lahayn wiilkii oo arrintan arkay ayaa la yaabay gabadhii oo iyaduna kor kala socotay arrintan ayaa la yaabtay falcelinta dadka isku yaqaan labadooda arrinta ayaa ku noqotay moral dilaac iyo la yaab wuxuuna intaas ka bacdi go'aansaday inuu sawirrada ka saaro halka uu soo geliyay arrintii ayaa qabsatay baraha bulshada waxaana aad iyo aad ula yaabay familka labada qof oo ay ka dhasheen intaas kadib waxaa xiriiro kala duwan lala sameeyay labada famil waxaana intaas ka bacdi ay ogaadeen labadooda inay isla dhasheen iyadoo intaas ka horna ay dhaxmareen xumaan kasta oo alla agtiisa ka fog subxaan Allah walaalayaal waxaa arrintaas aad iyo aad inta ugu badan dhibaatadeeda geystay aabaha dhalay labada canug oo aan wax gacan ah ka geysan isbaritaankooda waxaa jira ubad badan oo isla dhashay oo aan wax aqoon ah isku lahayn oo ku kala nool daafaha dunida waxaan kula talinayaa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada inay bartaan walaalahooda la dhashay oo ay aabayaashoodu hablaha ku fureen oo doorada ku faafsan subxaan Allah walaal faafi fadlan ku soo biir YouTube channelkeena haddii aad nagu cusub tahay